Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada channelka Dhaxalgal. Maanta waxaynu ka hadlaynaa laba qodob ay muhiim tahay si noloshaada aad u beddesho mise aad u degsato jadwal cusub ee nolosha. Ila daawo muuqaalkan ila dhamaadka. Beddel halka shay ee qaldan noloshaada marka ay imaado wax ka beddelka nolosha ama dib u habeenta waxaa durba maskaxdeena ku soo dhaca hadaf iyo hiigsi. Waxaa badan ay dadku isku mashquuliyaan waa qorista hadafyo iyo jadwalo nolosha inagu caburinaya oo xitaa waqtiyadeeni nasashada waxa aynu ku buuxinaynaa hawl aan u aragno in nolosheena ay wax ku soo kordhinayso, balse hal ama laba maalin marka aan isku dirqino oo aynu wadi weyno jadwalkeeni nolosha waxa uu ku soo laabanaya midkii hore ee caadiga ahaa. Haddaba haddii ay kugu dhacday arrinka uma baahnid in noloshaada aad ku sii darto culeysyo, kaliya waxaad u baahan tahay waa beddelidda hal ama laba caado oo noloshaada qarribaya, sida yareenta balwadaha aynu leenahay, sida isticmaalka waqtiga badan ee taleefanka iyo seexashada xilliga dambe ee habeenkii, kuwaasoo ina dhaxal siinaya in maalinkeeni uu ku bilowdo hurdo, caajis iyo daal oo waxba aan qaban kari weyno. Marka aynu yarnahay waalidkeen nooma ogola adeegsiga taleefanada iyo daawashada TV-yada ayagoo u arkaya intaas oo dhan caqabad hortaagan waxbarashadeena, balse marka aynu madax kor u soo qaadno waxa ay noo iibinayaan taleefano oo waxaa la gaaray xilligii aan qaadi lahayn mas'uuliyadda nafteena. Balse waxaa jirta xilliyo aynu ku guuldareysano arrinka oo taleefanada ay inoo noqdaan haga ina hogaaminaya oo ina gaarsiinayaan heer ay qaataan waqtigii waxbarashada, nasashada iyo hurdada intuba ilaa heer aan ku fikirno inaannu jajabino oo waagu uusan noogu baryin. Haddaba waxaa la gaaray xilligii aad isku noqon lahayd waalid oo aad gebi ahaanba u dhammayn lahayd dhammaan caadooyinka qalda ama dhaqamada qalda noloshaada. Haddii aad ka mid tahay dadka waqtigooda ugu badan ku lumiya isticmaalka taleefanka ama adeegsiga, waxaa jira mowduuc aad muhiim u ah oo uu diyaariyey kanaalka ogaansho oo ugu magac daray daroogada moobilka, oo uu ku soo koobayo faa'iido darada ay leedahay isticmaalka taleefanka iyo istiraatiijiyooyinka lagu xakameynayo. Linkiga waxaan idin dhigi doonaa qaybta hoose ee description-ka ama booqo ee ku qor qaybta kore ee YouTube-ka ogaansho daroogada moobilka. Runtii waxaa kuu soo bixi doona cinwaan aad muhiim u ah oo runtii aan aaminsanahay inaad wax badan aad ka faa'iidi doonto. Labo, baro sida wax loo joogteeyo. Haddii ay jirto hal caqabad inaga hortaagan gaaridda hadafyadeenu, waa tan joogteen la'aan. Imise hawl ayaad bilowday oo aad joojisay, haddana aad bilowday aad mar kale joojisay, iyadoo weliba ay jirto baahiyihii kugu kalifay inaad bilowdo hawshaas. Maalin waliba ma ahaan doontid wiilkan ama gabadhan fariidka ah, farxadda iyo firfircoonida wejigeeda laga dheehan karo. Maalmuhu waxa ay ku tusinayaan kolba wejiyo kala nooc ah, imtixaan, dhibaatooyin, duruufo iyo caqabado aadan horay ugu baran. Balse wiilka ama gabadha fariidka ahi waa tan soo toosta oo dhexda u xirata rumaynta riyooyinkeeda, iyadoo og inay jiraan duruufo, caqabado iyo xaalado aysan u cuntamaynin, balse iyadu aysan marna ku qancin in maalmuhu iyo duruufuhu ay duleystaan kadibna ay isdhiibto. Qofka go'aanka lihi waa kan dhaha, waan ogahay inay xaaladuhu ay qaraar yihiin, waxaan ku wajihi doonaa dhoola caddayn iyo samir, waayo waxaan ogahay in Rabbi subxaanahu wa tacaala uusan marna dadaalkaygu u dayici doonin.